wafdigan uu hogaaminayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo saaka aroorihii ka soo baxay caasimadda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jijjiga isla markaana socdaal ku mariyay dhowr degmo oo ka tirsan gobolka Faafan ayaa wuxuu soo gaaray waqti xaadirkan qabalaha Dhakaayo wafdigu socdaalku uu sii wadi doonaa ilaa iyo degmooyin fara badan oo ka tirsan gobolka Faafan aragtida waxaan rajaynayaa inay ku xigi doonto wax qabad dhaba jidka halka meesha marayaana wax badan buu noloshiina ka bedeli doonaa ee hadda socda jidkaasi hadduu dhammaado waxaan aaminsanahay in wax badan noloshiina ka bedeli doono aaggan waxaa lagu yaqaanaa inuu ahaa aag runtii dhibaatooyin badan ka soo gaadheen colaaddii iyo nabadgelyo la'aantii oo xansuuqyo fara badan iyo dilil fara badan ay ka dhaceen aaggan ilaa Britoola ilaa maanta mari doono ilaahay wixii inuu naga dulqaaday oo maanta nabad lagu naaloonayo wax wanaagsan in horta ilaahay ku xamdino weeyaan ilaahay nabadgelyada haynoo siyaadiyo wixii naga dhiman dhanka nolosha iyo waxqabadka hadday tahay adeegga asaasiga hadday tahay shaqaaleynta dhalinyarada hadday tahay beeraha iyo wax soo saarka waxoo dhanna haddii aan nabadgelyo helno iskuna duubnaano ilaahay wuu inoo sahlaya iyadana marka waqti fiican baa inoo soo socda mustaqbal fiican dhibaatooyin badan baan ka soo gudubnay ilaahay khayr ha inooga dhigo shacabka reer Dhakaayo ayaa iyaguna halkaasi ugu soo bandhigay madaxweynaha baahiyaha ay tabanayaan iyo waliba xaaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen ciidayda hooyay tani iyo caruurnimo ciiradana maanta igu taal waa anigii heesa caafimaad rabiya caynka tirin jiray soo aan bixin waliga caloosha ku diri jiray cindigaagu sidoo rabay caawa la gaaray ma soo aan baxay dadkeenni madaxweynaha daacada dadkiisa iyo dalkiisa dibadda iyo degaankii isku daray dhamaantood Mustafa daryeelka deeqlaana laga helay dambigiisa law dhaaf dulligii shalayna haystiyo silci saakana barba xidhan waa laga raysan silci xasuuqiya dhibaatadii xaajadiina waa laga baxay alxamdulillaah rabbil caalamiin mas'uuliinta waxaan leeyahay waa maanta waa maalin qaaliya samri ayaan baan ku suga ciid hooyo saaka sidaan rabay ani ii sawran tahay Soomaalidan israacday sameeya barwaaqada sareedadan isgaadhay sacbadaada kaga dharag taasi Mustafa iyo xisbigiisa ay qusaysaa maxay Sultan Cabdiraxmaan Bade maalinkii lagu xasuuqay meeshiyada ahayd maradii ilmadii jirkayga qoysay maral baan la qaaday haddana maanta dulmidiid iyo xisbiga qaaliga Mustafa watay iyo xisbiga dawladda intaas sano soo maamulayay iyo onelaf iyo dhammaan mucaaradkii jiray oo wada maanta hal mid ah markaan arkay ayaa heesahaas aan curiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin taasi waa taata kale madaxweyne waxaanu haynaa mubashir baa noo yimid mas'uulkeena mubashir baa noo yimid maalmihiisa ka dhaxdiisi taniya santarka horhawd iyo taniya santarka maxay ayday dhagax la inta u dhaxaysa warshadaha laga dhigo dhan bay noqonaysaa wax soo saarkii beeraha wax soo saarkii biyaha dahabkii caydhina wax kasta ayaala maanta wadada la mid haddaan helay saylad iyo warshado iyo waxaan u baahanahay wax deegaanka Soomaalida oo idil anfaca annaga dawladii hore waxba nooma qaban waxayna yeesho mooyaane xabaalahan imika naga dambeeya 12 nin oo ku ridnay 6 xabaal baa halkan imika agteena waxa kale oo jirta mooyaha 36 nin iyaguna inay xabaal wadadeeda ku jiraan cid agoomahoodii wax u qabatayna madaxweyne ma jiro dadka in wax loo qabto iyo agoomadii baa wax u baahanahay waa taasi waa ta koobaad ta kale togaran joognaa waa Faafan waa waadigii Shabeelle oo kale la mid yahay wax soo saarkiisu waxa biyaha laga gaari karaa 20 mitir 16 mitir 15 mitir waa dhulkii cagafyada iyo baldoosyada in lagu xaadho oo horumarka dawlad deegaanka wax ka soo baxaan loogu talagalay taa inaad noo qabataan u baahanahay ta kale waa webi sida goday oo kala kaneecada hodanku ah taana waxaan madaxweyne ka doonaynaa rug caafimaad oo weyn oo ballaaran inaad meesha nooga samayso oo dadka caafimaadkiisa lagu daryeelo taasina waa nooca ta kale waxaan kala hadlayaa xukuumadii hore dawladda ama deegaanka nagacdaad isbedel saartay dalkanagii oo ballaaran oo imika dhagax leh iyo buladaridaad ku socotaa waxa jira 8 kilomitir wax degmaa waa loo diiday cunaqabatayn baa la saaray cunaqabataynta in dawladda naga qaadaan doonaynaa inay dalka dib weyn nooga sameeyaan damaynaa madaxweynaha ayaa intuu socdaalkan ku jiray wuxuu sidoo kale booqday mid ka mid ah xarumaha shirkadda gacanta ku haysa dhismaha jidka laamiga ah ee isku xidha dhagax leh iyo Goljanno iyo sidoo kale
goobaha dhismaha jidku ka socdo waxayna mas-uuliyiinta shirkaddu u sheegeen madaxweynaha in jidkan oo 55 kilomitir ah haddana meel fiican maraya ay ku dhammaystirayaan muddo 6 bilood ah iyadoona ay xusid mudan tahay in jidkan laamiga ah ee ka leexda santarka Dhagaxleh uu isku xidhayo Dhagaxleh iyo degmada Dhanaan degmooyin fara badan oo ka mid ah gobolada Faafan Nogobna uu sii mari doono. Now the asphalt and the bridge course already started. I think the site you already looked the viewer is there. Faafan is start. And the asphalt is from 2024. Also started today. We go to site and in total, how many months we finish all the project? Totally half month. Because a half year. Gobolayaasha ku teedsan toga Faafan ee degmada Koonfurta Jijiga waxay ka mid yihiin meelihii dhibaatooyinku ka dhaceen deegaanka waxaana jira xasuuq wadareed loo geystay xilliyo kala duwan madaxweynaha oo ka duulaya arrimahaasi ayaa si uu ula soo wadaago xaaladaha ay soo mareen shacabku wuxuuna socdaalkan ku maray qabalayaasha kala ah Horahawd Quman iyo kala rogan iyada oo qabalayaasha mid kasta uu ku istaagayay tabashadoodana ka qaadayay madaxweynuhu. sandarka Horahawd 3 jeer baa la gubay adeegyada degmooyinka kale loo qabto waxa loo qabtay ma jiro biyo ma hayno iskuul ma hayno caafimaad ma hayno midna inta ma haysano madaxweyne waxa maanta sharaf iyo ciisi noo 12 madaxweyne ee deegaanka Soomaalida soo maray madaxweynihii koobaad baa tahay oo soo mara toga Faafaneed ee ummadda reer Nuuxleyda degantahay taasi waa wax Ilaahay maanta lagu mahadiyo madaxweyne midda labaad Ilaahay ku mahadinayna yeerana soo marinay kuwii hore wayna leen jireen laakiin intii aan xilka haysan leyntii baan horta adiga kana sanadaas waa mahadinay saddexaad kale madaxweyne 3 jeer baa la gubay tuulada Horahawd la yiraahdo 6 guri oo degdeg ku dhisnay xukuumadda macaanka gaahid baan baabiisay halkan inagu soo rartay anu guriyaha ee albaabka ka soo furtay guriyihii markii horena kasab ku dhismay duulashad markii hore gutay kuwan dhisay haddana albaabka ka soo furtay marka madaxweyne eega waxaan ugu sii daran biyaha horta aanu cabbi lahaynba booyaha socdaa xitaa kooba biyaha nooma shubi karaan baahiyaha jira deegaanka Soomaalidu badankoodu waa isku mid meel walba arrimaha dhinaca caafimaadka iskuulka biyaha jidadka dhibaatooyinkaas oo dhan meel walba ka jiraan laakiin waa la sii kala daran yahay aagani waxaan aaminsanahay inuu ahaa aagagii xidhnaa jid la'aanta awgeed adeegyo fara badan aan u heli jirin khayraad badanna leh dhul qurux badan dhulka ugu wanaagsan deegaankeenna aan ku tilmaami karno haddii laga faa'iidaystana ma aha oo keliya dadka halkan joogay dad fara badan oo kale nolol u abuuri kara weeyaan deegaankani marka waa la dadaali doonaa waxaan idiin sheegayaa in mashaariicda loo yaqaano BCDB-da oo ahaa mashaariic ay fangareyso bangiga adduunka uu fangareeyo lagu daray doorkan Shabeelley degmada Shabeelley ay ka mid tahay marka mar haddii Shabeelley lagu daray in Shabeelley dhexdeedana santarada kuwan oo kala ah ee go'doonka ah xooga la saaro ayaan maaragtay go'aaminay arrintaa in waa arrin mashruuc runtii wax weyn soo kordhinaya وإننا جوجا ماريه مشروع وإننا جوجا وقت دولا بالله بدونا فيس كورا دماضي قيبتي لواد بهذا بالله ميسا وحنا مسنا إن حاجة عافماتك يو حقبتك حولها يو حدن واحدة لقى قبل دونا بدون ماركتي عن فوقين إن شاء الله لكن ما داموا باهيها ديجان كأدو بدنيين وطن فقير عن كتر سنة هاي ديجان دقالها يا لوسير هاي إلا يصدوا القاطع ونبت جديدة يوحنا صاكر لي هدي لسي وضع هدي سي سعتنا هرمركو إيمانا يابان قبنا وضعنا هذا لسمي لفتي وحوي ببدأ دونتا وسيدي هذا كهر وقت داري يكون قادريسي ما نقونيش مركا وقت في عبا يناس الصعدة عن ساميرو wafdiga ayaa gaadhay qabalaha sidan xilli duhur ah oo si diiran loogu soo dhaweeyay isla markaana uu hadgalay wafdigu
shacabka reesidan ayuuna madaxweynuhu meel fagaaraha kulan kula qaatay iyagoona shacabku ugu soo bandhigay baahidooda ah sidoo kalena madaxweynaha uga sheekeeyey tacadiyadii soo gaadhay waxaa maanta farxad noo ah oon aad anu iloobayn madaxweyne hadduuna maanta waxba noo qabanin 11 madaxweyne mise 12 madaxweyne ku yahay intii deegaanka soo martay mid dhulka arkay ma jirto maadaama uu halkaa yimid maanta waanu gamaynaa idi diila badan waan leenahay ta kale annagu dhibaato badan ma qabnaa dhibaatadan qabno waxa kamid ah waxaan isweydiinaa mararka barkood niyo ma Burundi baan ka nimid ma Rwanda ka nimid xageen ku dhalanay ma inaan Soomaali ahayn ma inaan deegaanka ahayn ma inaan madaxdu ku weyn ahayn taa markaan ka soo gudbo taa maxay igu kalifay idaacadaha eega FM-ta ma dhageysano waayo waan iska xidhnaa 30 sano iyo isbedelkii ee BRDF yaan joognaa 30 ka sano wax meesha laga qabtay iyo wax dawladda Hayle Silaasiya mingisti wax uga dambeeyay ma jiro haddaba waxaan leeyahay annagu dad dayacan baan nahay dhibaato nagu dhacday dhibaato fara badan baa nagu dhacday aad baan u dhibanahay eega hadalla aan ku hadli karin baa halkan jooga haween waxa jooga eega halkan fadhiya hadallada barkooda haddaan u sheego wada ilmayn wiilashoodii oo la laayay oo wax la aasan la waayay halkan fadhiyaan eega oo farqa ku soo qaatay shalmada 500 oo ruux baa halka ku aasan halkan inta xabaalahan waa wada xabaal wadareed guriyihii la dhisay waa la wada gubay guri nool ma jiro aw shirkadda Al-Caafi khaliif guriyaha dhisay way taagan yihiin eega waa la wada yaqaanaa magaaladii degtaas ahayd haddaba waxaan maanta maadaama oo madaxweynaheeni qaaliga ahaa uu noo yimid maanta waxaan ka codsanaynaa jid ma jiro caafimaad ma jiro anteen ma jiro dhulka annaga waxaa noogu saysa degmadii Shabeelley oo aad nooga fog ayaan ka tirsannahay haddayna degmadu wax dhibaato aan oo geysano aad u fiican tahay awood uma leh ay nagu maamusho halkaan taaganahay buladari orda ilaa daadhi amadle awood ay ku maamusho male 3 degmay ka badan tahay 4 degmay ka badan tahay miisaaniyada loo qabtaa macaantiin bay u gaari wax eedo ay leedahay ma jirto waxna naga ma hagranayso taalafteed waxaan madaxweynaha isagoo hadalkay leeyahay ka codsanaya caafimaad wado maartay waxbarasho geedka iyaga iskuulka waxa la yiraahdaa EAB soksok waa kaawaan madaxweynaha soo tusna ku reey waa kii halka ahaa EAB soksok baa la yiraahdaa deegaankeenu maanta wuu ka tagay arinta madaxweyne waxaan ka codsanaynaa maanta hadii Ilaahay mashan ku keenay hoy agoonta inaad noo dhax dhigto oo ku urursano agoomaha oo noo dhax dhigto waa koow waxaanu ka codsanaynaa dhulkaasi degmo male waxba male inaad deegaanka nagala mid ka dhigto mudane madaxweyne Mustafa Maxamed Umar waxa nagu soo maray wadankan laba malagii wax dilayay iyo kii wad maraan marayba nagu soo maray Mustafa wadanka waxa nagu soo maray ardaayilkii wax dilayay nafta qaadayay iyo kii aakhira ku meelaan marayba labadaba nagu soo mareen midowna dilay midna uu xisaabinayay way nagu soo martay halkan kuna dila iyo kuna xisaabiya mukani oo nakiir la sidii kutubtu sheegtay halka adduunyada dusheeda nagu soo martay sidaa darteed dadka meesha fadhiya kolkii 4 meelood oo dhigo 3 baa agoomaa gacanta dawlad labada xabadood ee dilay dawladda u badnayd waxa dilay xaqiiqada marka la gaaro ona laf waxa disay way ku yareen hadii soo ona laf laakiin dawladda laysay Cabdiraxmaan laba golaal laayay waxa dhacday mesantarka buladari marka laga soo qaado 44 ruux oo iyagoo harawaajo qadayo oo gunti furanayo oo gabadh meerinaya 45 ruux oo kala soo afduubay oo suumashii wata oo gudumihii wata oo hankoolkii wata
oo inta la qaybiyey oo shan loo duligay waraaran ku tusi doono kolkii la leynayay amar uu bixiyay ninkii haystay malaaje amar buu bixiyay ninka malaaje la oranayay amar buu bixiyay rag maad quricsan buu maad quricsan shan baa loo quricsiyay rag baleeg 45 nin baa la isku xulay shan walba shan waliba kuwa meeyday ku dhacayeen waraarka murti baan idin sheegayaa midaana seegayna madax fiican yaan yeelanay oo la isu soo maray meel baynu wada sheeganaa magaca Soomaali midnima wax lagu maamulaa meel la joogaba haddii uu wax kale kugu mirkaco way murkacataay sida Cabdi Maxamed Cumar وين وحويس ما يمركعتاي نبا wax lagu maamulaa meel la jooga be hadii uu wax kale kugu mirkaco way murkacataay waa laga maarmaan inaan miiska soo dhigay mutibaan idin sheegaya mid aan seegayn madax fiican baan yeelanay oo la isu soo maray meel baynu wada sheeganaa magaca Soomaali midnima wax lagu maamulaa meel la jooga be haddii ay wax kale kugu mirkaco way murkacataay oo waa laga maarmaan inaan miiska soo dhigay maatidoo wax noo barata waa geed magool baxay Mustafa oo adduunyada wax badan mawdku kugu daayay aakharana jannada meel badan lagu muhiimsiin meeraala rooba daay iyo mayay kaliineede maalkiina wuu doogsaday oo mulay buu daaqaaye xaqi naga maroor samayna wuu soo mudbaxayay mashaariicda beeruhuna waa inay midhaystaan masaakiinta iyo maatidu waa inay malabka daaqaan Mustafa adduunyada wax badan mawdku kugu daayay aakharana jannada meel badan lagu mahiibsiiyay meelan joogo maadooyinka bay waan macnayn jiray macnanaas waxaan meel la gelin saday ma hadhada murtida meelun baan midigta saartaa markadiisa waan soo maray iyo maadadu galee muran baa maseeyay inaan mariyo weeyaan on mahadsannahay madarka aan joogno madaxdeena noo timid miday mudatay weeyaan Mustafa adduunyada wax badan mawdku kugu daayay aakharana jannada meel badan lagu muhiibsiiyay hadalladaasi shacabka kadibna madaxweynuhu markuu dhageysay ayuu halkaasi ka hadlay waxaana hadalladiisii kamid ahaa way muuqataa in dadkani aynan arag adeegyadii ay ahayd inay dawladda ka helaan muddo fara badan aagani uu go'doonaha runtii aragtidu waa wax fiican laga yaabaa inaan qiyaasinay in aagani yahay aag ka go'naa deegaanka marka loo eego dhawaanshaha uu u dhow yahay jijigana waxaan qabaa in hagarsho badan ay jirtay oo aynan ahayn sidan uu ahaado xagga caafimaadka jidadka waxbarashada shaqo abuurka wixii aad ka hadasheen oo dhan dhammaanteed wuu baahan yahay dadkani way muuqataa insha Allah waan dadaali doonaa wax allaale wixii aan karayno inaan shacabka soo gaarsiino oo dadku maadaama meelaha meelaha sii daran halkan ka mid tahay baan ku dadaali doonaa markaan laabano insha Allah hogaaminta gobolka yaan wixii markaa diyaara hadda in hadda qaban karno iyo wixii u baahan in la sugo oo waqti loo qabto maadaama baahiyaha oo dhan hal mar aan la wada dhameystiri karin la jawaabi karin yaa idin soo sheegi doonaa laakiin sida hadda sheegteen ambulance iyo iskuulada iyo beeraha iyo arrimaha ka hadasheen baa jira baahiyada shacabka ka yimid si degdeg ah inaan uga jawaabno yaan ku dadaalaynaa xogtooda dhameystirana dhaqso la idin soo siiyo intii halkan fagaaraha meelo badan baa yaa sii marayna noo harsan marka waxa fiican markaan wada marno ee dhameysano booqashada insha Allah bari oo kale inaan markaa wixii aan isleenahay waxaas ku haboon meel walba aan go'aamino maadaama hadda aan bartamaha kaga jirno booqashadii waxa fiican inaan sugno ilaa iyo Abdulcaawiya sida loo kala daran yahay si xawd yihiin iyo si aan u aragno hadii la yiraahdo laakiin way muuqataa baahi iyo dayacad fara badan dhanka kale sidii adduunkuba sheegteen aagan wuxuu aag dagaal dadkuna laba dhinac ay dhibaato kaga socotay ilaahay wanaga dulqaaday arrintii saas ahayd muddo sanada hadda dadku inuu ka nastay baad moodaa taa in ilaahay nagu sii wadana maaragtay waxay u baahan tahay inaan kulligeen gacmaha isqabsano samir badan waan u baahannahay intaa ka badan baad soo samrayseen idinkoo wiilashiina la laynayo dhibaato idin haysato adeegna aan haynin dilo idin dheeryahay yaa halka ku soo gaadheen
marka wax yar oo dheeraad inaad noo sii samirtaan insha Allah haddii la yidhaa jidadka iyo anteenada iyo ambulance iyo wax oo dhan way soo gaari doonaan xilli aan fogeyn iyo waxbarashaduba inaan indha dheeraad u yeelano waa ballan qaadaynaa oo aan si fiican maaragtay u soo dadaalo aagan iyo magaalada Jijjiga dhulkan dhul isku furan oo saacado yar kooban lagu tagayo laga dhigo aan ka shaqayn doonaa haddii la yidhaa meelihii xaqirnaana xaqooda in la siiyo ay tahay waan naga go'an tahay arrintaasi aad iyo aad baan idiin salaamayaa aan isku dubnaano maamulka la shaqeeya annaguna soo dadaalayna waa maasantii wafdiga ayaa kadib ka dhaqaaqay qabalaha Sidan isagoo oona uga gudbay dhanka qabalaha Buladari oo ka tirsan degmada Koonfurta Jijjiga wafdiga ayaa markay Buladari soo gaadheen waxa soo dhaweyn diiran kala hor yimid shacabka reer Buladari oo ku soo dhaweeyay wajiyo farxad ka muuqato iyo caleemo qoyan haddaba madaxweynaha ayaa shacabka reer Buladari meel fagaara ah oo ballaaran kula qaatay waxayna madaxweynaha la wadaageen shacabka Buladari dhibaatooyinkii ay soo mareen sida ay sheegeen xilligii dawladii hore waxyaabaha ay u baahan yihiin way ka codsadeen ee dhanka horumarka iyo adeegyada aasaasiga ah anu isma lahayn madaxweynaha idinku iman Buladari maadaama oo in badan u gobol xaadnay una rafaadnay aan dhowrayna eegase waan arkay waxay ka dhigan tahay nin cadaab malaystay oo janno galay waxay weeyaan anu waxaan ka tirsanahay santarka Buladari waxaan ka soo baxay santarka gubadwaalaha meeshii xasuuqu ugu badnaa anu waxaan u taagnaa 60 nin oon caanaha daba wado oon leeyahay goor dhow sii xalayna meel lagu ooday sidaan u daba socday yaa xabadii lagu bilaabay rag meesha nooga guraa ma jiro waxa lagu daadiyay qaw anigi iyo hooyooyinkii dhalay oon anna ka mid ahay yay aas nagu qabsadeen roobna halkii yuu nagu helay 26 nin yaan annagoo haweena ka soo guray halkaasi waxay ahayd gubadwaalaha waxayna ka tirsan tahay santarka Buladari eegana waxaad ku soo marteen meel aan wadankaba lagu soo marin oo waabuun ah idinkaaba indhihiina ku arkay degmooyinka inay ka duwan tahay taasi waa gubadwaala anigu waan u taagnaa tan oo kale halka imika uu ka muuqdo haanku waxaan isdul taagay 59 nin oon mid aanan garanaynin uuna ku jirin waxaan ku guray qudacyaha hoostooda lama aasin oo looma qorin xabaale waraar baa loo jeexay lama xabaal qodin lamana maydhin hadda wax dawlad oo noo aragtayna ma jirto shir maala yacniya baan soo daashaday hadhi iyo habeen waan ku hadli jiray hadda horta eega waxaan baryayaa kii oo kale inuuna kan inagu noqon oo wax naloogu qabto inta dumara ee iminka idinku aragtaan ninka agoona iyo intaan ahayni way isla eg tahay inta hadda timid waa wadaadii iyo tii halkan soo gaari kartay degmadan ma naalo mid waliba waxay ka timid 5 kilomitir tii uu ray ahayd iyo tii umul ahayd iyo ilmihii iskuulka dhigan lahaa hadda wuu inaga maqan yahay intana aragtaan shanlaabkeed baa maqan oo ku nool godaha faafaneed oon dawladda meel la kala xidhiirsanayn hadda mudana madaxweyne waxaan codsanaynaa sidii hore inuu hadalkan inagu noqon qiiro inuu idin geliyo inaad wax noo qabataan ani waxa jirtay waxaan dhageystaa FM ta
wax dawlad ka tirsan fntu siday macniga uu sheekaynaysay intaan qaatay haween inaan la baxay 17 habeen inaan jigjiga u dhaxay anigoo u sii dhaxay 9 habeen sahaydii inaan ku waayay degmi iyo gobolba inaan galay iskaashato inaan daydayay shaqo abuur ahaan markii beerahanagii nalaga keenay bartiina ay nagu dhaaftay meeshii nalagu ururiyey inaan shaqo daydaydo kolkaan ka maqlay maaragtaa bahashaan haystay sida dadweynuhu horumar u gaadhay aanse annagu aanaan la qabin markaan meeshii tegay dee yaa iga hoos qaaday meel walba shilinka unbaa laygaga furtay sawir waan galay haweenkii aan kaxeeyey hadda halkan wada fadhiyaan waxaa la iga rogay haweenkii inaan la gooyey hantidiina in layga soo dhabqistay hadda sidii baan ka ahay wax dawladeed tani iyo dhalaartii dadka la leynayayna ganacsi waan daydayey 20 koor baan galay iskaashato waxa way iga suurtagal weyd hadda walaal mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa sidii hore inaan noqonin anigoo hadalkii badiyay waxaan leeyahay noo dadaal annana aan ku ducayno waxaan noo dhibaatooyinka noogu badan waa siduu sida sheekhu sheegay waxa ugu daran horta iskaashiinta baahidanada ninun baa noo nixi lahaa markii aanu hadallo ninaba nama oga waxaa kaloo noogu daran boondi agoonta naloogu dhiso agoon baa wax la siiyaa un baan maqli jiree annagu waa agoonta mabaanaan odhan karin waaba nalagu qabsanayay waan qarinaynay carruurtan aabood aaway haddii nala yidhaahdo waa agoonoo waa la dilay maanaan odhan karin inaanu nidhaahno meel buu ku maqan yahay mooye waaba wax naloogu taree waxaanse maqli jiray agoomaha waxbaa loo taraa meel baa la geeyaa annagu maanaan arag eegga waxaan idin leeyahay maadaama ood eegga annagoon madaxweyne noo imin aad noo timid eeggana sidii agoomaha wax loogu tari jiray in naloogu taro annaguna haddaanu ganacsato nahay iskaashato in naloo sameeyo beerahanagii fakaday cagafyada dhulka ee dadka lagu taakuliyo in nala siiyo maadaama ood noo timaadeen waxaa kaloon idinka codsanaynaa waddadaad idinkuba aragteen walaalayaal in nalagu soo simo waxaa kaloonu codsanaynaa oo noogu daran annagu santaraha yaryar ee kabtan ka tirsan een iskuulkana soo gaadhaynin iskuullo u dhisnayn baanu nahay meesha yaree waabab kaleetu soo marteen buladari baa waxaa la yidhaha gubad waala ani gurigaygu buladari buu ku dhisan yahay haddana beertaydii iyo bartaydii baan u tegey maadaama cabsidii baxday oo meel walba lagu ganacsan karo halka aan tegey ubadkii joogay waxba ma barto iskuul ma leh kan ma soo gaari karo dawlad uma sheegano wax qabad baan uga baahannahay uu u horeeyo meesha ubadku wax noogu dhigan lahaa waxaa farxad noo ah haddii aan nahay santarkan ilaa faafan santarka ugu hooseeya iyo inta ka soo hooseysa dhagax leh xukuumaddii hore ilaa 13 madaxweyne waan sugayna uun laakiin nasiib wanaag waxaa muxuu ahaay xilkaysa saaray muxuu ahaay isbeddelkan guud si gaariya si guudba u jira mustafa maxamed cumar baa iska saaray in uu muxuu haddii alla ka dhigo kabihiisa isaga oo kabala inuu buladari siden kala roga ilaa dhagax leh inuu dhagax lugeeyo shacabka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horumarka muxuu ahaayey annaga intaasaa horumar noo ah marka inkastoo oon yar qamaamsannahay oo hadalkayga hadduu isyar dhaafdhaafo yar farxad baa jirta maadaama oo 13 madaxweyne annaan wax madaxweynaha arag intaas baad iga dareemaysaan xagga yacni muxuu ahaa yeer isdhaafdhaafka xagga baahida haddii aan u leexdo waxaan ka bilaabayaa gobolkan muxuu ahaa faafan meelihii ugu dhibaato badnayd bay ka mid ahaayeen santaradan maanta kani ugu dambeeyo haddii aan soo qaato
dhibaatooyinkii waxaan ka soo qaato hadda waxaa la helayaa 100 hooyo oo la agoonteeyey 200 oo ruux oo muxuu ahaa dhiiggii iyo xabaddii oo ciyaal ahaa oo ogantoomoobay maskaxdoodana waxyeelada dhiiggii badnaa ay soo gaadhay waynala joogaan waa xagga waxyeelada markaan taabto waxaa jirta madaxweyne xabaalo wadareed aan arki doono 50 30 20 iseenaan ku arki doonnaa insha allahu waxaa jirta oo kale xabaalahaasi waxay ka kooban yihiin wax la xasuuqay wax umulkacay wax markii dadka lagu soo ururiyey shuban biyoodkii ku dhacay sidan oo kale waa sidaa kala rag oo kale waa sidaa horahawd oo kale waa sidaa gooba inaga hooseeya oo iyaguna soo kala jira baaxad ahaan xagga dhulka quraafi ahaan xagga madaxweyne waa 100 kilomitir beel weyntan meesha inta ay degan tahay xagga dherarka oo kale waxay noqonaysaa 140 waxay naga hooseeyaa 40 kilomitir bay naga hooseeyaa marka haddii aan dhibaatooyinka sii wado wax muuqda ay u jiraa hadday wada la'aan tahay haddii sida gudoomiyuhu uu sheegay hadday jid la'aan tahay hadday isgaarsiin la'aan tahay hadday horumar la'aan tahay taas leedii kama turjumaya mudan madaxweyne laakiin muxuu ahaayay 10 sano ugu dambeeyay wax dhul ahoo la qoday madaxweyne ma jiro dadka waa la soo safaariyay sidan baa la soo safaariyay halkana la soo safaariyay horahawd baa la soo safaariyay 190 aqal oo la gubay oo dasa ahaa jira waa marka aan soo gaagaabinayo inta tuule ee ka jirta mid aan la gubini kuma jirto madaxweyne waxaan soconaynaa madaxweyne haddii aad noo timid annaga waxaan horumar horta marka hore noo ah dhax imaadkaaga adigoo xukuumaddaadii salaadiintaadii muxuu la taliyaashaadii wata marka koobaad madaxweyne muxuu ahaa mar hore waxaa jirtay xukuumaddii hore 10 riti aan ku qalay meeshan wax noogu yimidna uuna amarkeediina lagu qalay taa alxamdulillaah annagoon waxna qalin diyaar garaysanna adugu waa iyaad noo timid waxaana qancinayaa mudane madaxweyne annaga deg maana qancin talabaad haddii ay noqon weydo waxaana qancin mudane madaxweyne in naloo dhiso kamaneed ku meel gaadh ah waa mid aanu codsanayno idinkana idinku xidhan insha allaahuna aan idinku ducaynayno waxaa xusid mudan oo wafdiga qayb ka ahaa suldaan cabdiraxmaan badeh oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka soomaalida isaguna fagaarahan maruu ka hadlayey ayaa waxa uu yidhi runtii halkan wixii ka dhacay waa la wada og yahay adduunkoo dhan baa og annagaa og cid walba way og tahay waad aragtaa nafaqadarraa ka muuqata waxaa ka muuqata baahi agoonnimadii baa ka muuqata iyo rajannimadii anuu halkan habeen baan imid habeenkaana mashiin baan watay layda inaad xasuustihiin mooyaane dad ilaa 7 oo ay ku sheegeen inay yihiin onlef oo dadku isku sheegeen baa meel la iigu ururiyey markii dambena waan iska sii daayey subaxiina waan ka baxay intaa intii iga dambaysay waxaa ku dhintay halkan xubno badan oo maamulka degmada Jigjiga ka tirsanaa iyo gobolkaba oo hadda agoontoodii ay noosh dadka kale ee la iska marjinayay ciidda ka badnaay waxaa ku jira dad aroos joogay oo dhammaantoodba inta gaar laga qabtay la iska mariyey oo la laayay waan ognahay waxaasoo dhan mudane madaxweyne annaga madaxweynehayagii qaaligahaa baa tahay waxaan kaa rajaynaynaa deegaankaa ballaaran ee soo marnay inaadan waxba ka hagran doonin wax alliyaada wixii ay kaa codsadeen inaad u qabataan kaa codsanaya aniguna mudane madaxweyne madaxweynaha oo shacabkan markuu dhageystay baahidooda iyo taariikhdii madoobeed ay soo mareen goobta kula hadlay ayaa isna waxaa hadalladiisi ka mid ahaa buladadii gaar ahaan si gaaraan uga wadhayey intii xitaa madaxweynaha aanan noqon
dadka badan la socda xilligii iyada ahaa arrimihii jiray way og yihiin inaan aad wax uga qori jirnay kana hadli jirnay xansuuqyadii meesha ka dhacay markii aan xukunkan nimid labadii bilood ugu horreysay gudahooda waxaan diyaarinay tiim suldaan cabdiraxmaan iyo odayaal kale ay ku jiraan oon soo anbabixinnay oo aan nidhi waxaad tagtaan buuladari iyo mooyaha iyo meelihii la midka ahaa xilligaa iyadaa maadaama xukuumadda xoogaa laisdhex fadhiyey oo dad isbeddelka diidan iyo dad rababa la ahaa arrintii noocaas ahayd adigu isbaara loo dhigay wayna suurtogeli weyday wuu la socdaa suldaanku wax alla wixii u baahnay oo dhan waa loo dhammaystiray xilligaa in la yimaado waxay muujinaysaa inaan xusuusnayn dhibaatada ku dhacday aaggan sida uu sheegay dadkii iga horreeyey xansuuqi meeshan ka dhacay halkan keliya ma ahayn laakiin meelihii ugu darnaa ayay ahayd ee ugu xanuunka badnaa marka ilaahay wixii naga dulqaaday oo maanta cid awood u leh inay shacab iska layso waxay dooni ha ugu mambasooto nabadiid buu ahaa dowladnimaan dhisayaa nidaam baan samaynayaa kana keerow wax bilaa-aadama naftii inaad goyso xaq kuu siinaya ama awood kuu siinaya haba yaraatee oo jira ma jiro dulmi cad oo badheedha oo aan loo baahnayn ayuu ahaa iyo ku tagrifar awoodeed oo aada u foolxun dowladnimadu kama qiimo badna nafta bini aadamka horumarku kama qiimo badna nafta bini aadamka waxaa garan kara qofka ilmihiisa hortiisa lagu dilo qofka hooyadii hortiisa lagu dilo qofka adeerkii lagu dilo yaa garan kara xanuunka ay leedahay iyo sida ay noloshiisa u bedelayso marka waxaa nasiib daraa wixii saas ahaa ee saa u dhacay ee dulmiga loo wada joogay saacadda aan taagannahay dad ama dafirsan baa jira ama in la soo qaado baan ogolayn oo haddaad ka hadasho u dhigaya ama inaad cuqdadaysan tahay ama inaad soo faarfaarayso waxyaalaha ay ahayd in laga gudbo kuwaas waxay isugu jiraan kuwii dulmiga geystay iyo kuwo u arka dulmiga in laga hadhadlo inay toosh ku shidayso iyagana oo iyaguna diidan in wax dil iyo dulmiga la soo qaado oo ka dhex raadinaya faa'iido siyaasadeed iyo doorasho iyo waxaan macno lahayn in la xaqiro dadkii la laayay ee sidii aad sheegteen halkan badankoodu intii ka soo hadhay iyo intii agoomaha ahayd ay fadhiyaan arrintaas xukuumaddu waxay aaminsanahay inay waxoogaa aan ka gaabinay waa inaan tooshka ku shidnaa waa inaan agoontii wax u qabannaa waa inaan xansuuqyadii dhacay dib usoo faadhfaadhnaa waa in dembiilayaashii wixii ay geysteen loo raacaa waa in kuwii ku garab istaagay dulmigaa taagnaa la ceebeeyaa oo la cambaarayaa taas waxaa loo samaynayaa oo taariikhda hore loo soo faadhfaadhayaa inayna dib u dhicin wax noocaas oo kale haddii taariikhihii hore la aaso wax diidayaa ma jiro berrina qof kaloo ordayo qori wataa isagoo macno kale sheegaya ama ku diineed ama ku kale inuu haddana dad kale laayo xansuuqu caburiyo oo xoog uu ku dhibaateeyo wax diidayaa ma jiro sababta taariikhdii Hitler iyo Mussolini iyo wixii looga sheekeeyay adduunka waxa weeye inayna soo noqonin tacadiyadii noocaas ahaa oo kale waxaan ku bishaaraynayaa in maanta waxaas inaga dhammaadeen in shacabku maanta ay nabad dareemayaan meel walba oo deegaanka ka tirsan inkasta oo baahihii jiray ee xagga nolosha ahaa ay ballaaran yihiin weli haddana in ilaahay nabadgelyo sanadkan ina siiyey ilaahayna aan ka ducaysano inuu inoo sii wada nabadgelyada taas marka laga tago waxaan idinka tacsiyeenayaa reer buuladari iyo aaggan oo dhan dhibaatadii idinku dhacday iyo xansuuqyadii laydin geystay yaan idinka tacsiyeenayaa ilaahay boggiina burcad ha mariyo ilaahay maarta samir iyo iimaan ka siiyo eheladii iyo qaraabadii iyo carruurtii aad ku weydeen markaan u soo noqonno dhinaca baahiyaha aad sheegteen waxaan jecelahay inaan sheeko oday ka mid ah odayaal dadkii aan shirinaynay wardheer magaalada wardheer ha uu noo sheegay wuxuu yidhi nin baa dukaan galay kabo nin baa yidhi kabaan kuu iibinayaa inakeen nin kabahan ka qaado dukaanka noocaad kabaha doonayso lambarkaa doonayso ka qaado lambarkaaga ninkii wuxuu ka walbahaaray dukaanka lambarada yaalla in laga waayo kab isaga le-eg ama tiisa lambarkiisa hadduu sheegto in la waayo haddii la waayona markaa inuu kaba la-aan uu noqdo inuu ka walbahaaray marka kabahaas aad la socotaan lambarada qaar lambar 6 baa u yar waxaa ugu weyn lambar 12
marka wuxuu yidhi imisaa kula eg baa la yidhi ninkii wuxuu yidhi waxaa ila eg lambar 6 ilaa 12 kulli waa ila egyihiin buu yidhi macnaha waxaan ka wadaa meeshan baahida taalla baahi iminka la odhan karo waa waxaas maaha wax walba oo baahiya oo bini'aadam u baahan yahay way ka muuqataa dhinaca caafimaadka waad sheegteen inuu wada shaqaynayn health centerkani inkastoo ay wanaagsan tahay inuu dhisan yahay dhinaca jidadka iyo barishada isgaarsiinta ambulaansida waxbarashada oo idinku agoomaha iyo boardingka ka hadasheen waxoo dhan runtii waa baahiyo jira sanadkii hore waxoogaa fursad waxaan haysanay xilliyadii aan gobollada maraynay waxay ahayd xilli aan ku guda jirnay diyaarinta miisaaniyaddii dib u habayntii miisaaniyaddii aan u nimid hore oo isku daasanayd inaan dib u habayno waxaan markaa haysanay fursado meesha annagoo taagan aan ku bixin karno ballanqaadyo maadaama miisaaniyaddii diyaargarowgeedii lagu dhex jiro waxaa ka mid ahaa boodhinno aan soo ballanqaadnay oo u malaynaya ilaa iyo 8 hadda in miisaaniyadda washir ilaa 6 hadda ay ku jiraan sanadkan miisaaniyadda lagu daray waxaa ka mid ahaa iyaduna sidoo kale macaadiyo kale jidad oo xilliga aan meesha maraynaa doorkan sidaad la socotaan maadaama miisaaniyaddii la diyaariyey haddana gudagalkeedii 2 bilood ahaan aan soo dhaafnay miisaaniyaddii cusbayd wixii aan qaban karno waa inaan dib isugu noqonno oo miisaaniyadda la qorsheeyey wixii ka go'i kara ee meelihii la ilduufay ama aan loo qabanin sida aagan hadda aan marayno kala in dib loo qorsheeyo u baahan tahay sidaa daraaddeed waxaan idiin ballan qaadayaa inaan il gaara ku eegno baahiyahaas aad sheegteen wixii hadda la qaban karo hadday tahay dhinaca jidka iyo anteenada iyo ambulance iyo waxaan inaan dhaqso u gudagallo yaan ma ballan qaadayaa laakiin waxaasaan xilligaa keenaynaa hadda inaan waxaa ka fiican inaan horta isku noqonno annagu dib u laabanno eegno wixii aan hayno iyo wixii suurtagal ah waxaan laakiin hadda idiin sheegayaa in 2 mashruuc miisaaniyadda sanadkan ay ku jiraan oo la idiin qabtaba iyadii meeshan aanan imanba waxaa ka mid ah mashruuc biyogelina oo biyaha la soo jiidayo oo tuubooyin la idinku keenayo mashruucaasi wuu idinku jiraa dhaqso inuu u bilowdana waan rajaynaynaa kaasoon aaminsanahay inuu noloshiinna iyo dhinaca caafimaadka wax weyn ka bedeli doono waxaa kaloo ku jira mashruuc isaguna jid ah oo halkan iyo qabri bayax isku xidhaya oo isaguna sanadkan miisaaniyaddii lagu daray labadaasi way ku jiraan laakiin wixii kale ee miisaaniyad badanba u baahnayn sida anteenada iyo ambulance sidoo kale iyo wixii aan baarbaari karno hadda inaan dhaqso isugu noqonno buladari keliya mehe aagan hadda aan marayno maanta ilaa berritole sida ay u kala muhiimsan yihiin inaan usoo qorsheyno yaan ballan qaadaynaa wixii xogana gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada yaa soo marinayna wafdiga madaxweynaha deegaanka uu hogaaminayo ayaa habeenkiisii ugu horreeyay socdaalka buladari ku dhaxay isaga oona noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee deegaanka Soomaalida soo mara ee buladari cagaha dhiga intaasi ayuuna inoogu egyahay qaybtii koobaad ee socdaalka madaxweynaha barnaamijka